maxaa loo coslay wasiirkii hore ee kheyraadka badda Puntland injineer Maxamuud Xaaji Saalax. wasiirkii hore ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland injineer Maxamuud Xaaji Saalax ayaa caawa taariikhdu marka ay ku beegneed 21-ka bisha 12 ee December 2020 iska casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda Puntland. injineer Maxamuud Xaaji Saalax wasiirkii hore ee kheyraadka badda Puntland ayaa sheegay in uu xilka iska casilay kadib markii ay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ay isla fahmi waayeen shaqada wasaaradda kheyraadka badda Puntland ay u haysto bulshada Puntland iyo qaabka loogu adeegayo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Puntland. wasiirka ayaa wuxuu intaas ku daray in ay muhiim tahay in la isla fahmo waxyaabaha loo qabanayo bulshada Puntland marka ay xaaladdu marayso madax iyo dadkii soo magacaabay madaxdaasi. halkaasi waxaa inooga habboon oo kaliya oo inooga bannaan in aan adeecno madaxdayna isla markaana ayna meesha soo gelin dulduleelo ay ka faa'iidaysan karayaan dadka cadowga ku ah horumarka Puntland. isqabadku iyo is-afgaranwaagu markasta ayuu dhacaa, laakiin halkeedu waxa weeyaan in la isu talansulo, ayuu yiri wasiirku. wasiirka ayaa warqadiisii as-asilaada wuxuu u soo gudbiyay madaxweynaha Puntland, halkaas ayuuna uga aqbalay, waxaana madaxweynaha laga rajaynayaa maalmaha inoogu soo socda inuu si degdeg ah oo sharciga waafaqsan oo u soo magacaabo booska wasiirkii hore injineer Maxamuud Xaaji Saalax, nin buuxin kara oo tayo iyo aqoonteedaba leh. wasiirka ayaa waxa uu ka mahadceliyay inta uu shaqada u hayay maamulka Puntland isla markaana bulshada u adeegayay. waxaa sidoo kale wasiirku u mahadceliyay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo markii horeba u ogolaaday inuu wasiir ka noqdo maamulka Puntland. waxay wararkan ku soo kora nagala socda channelkayga. maxaa loo coslay wasiirkii hore ee kheyraadka badda Puntland injineer Maxamuud Xaaji Saalax. wasiirkii hore ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland injineer Maxamuud